Kareemkan haddii aad gacmaha iyo lugaha marsatid, hubaal inay gacmahaaga iyo lugaha si degdeg ah ay kuugu cadaanayaan. Sidoo kalena gacmaha iyo lugaha ay kuu noqonayaan jileec iyo qurux. Waa kareem dhan walba ka dhameystiran. Gacmaha iyo lugaha kaama dhuubayo, wuu kuu cadeynayaa weliba si degdeg ah. Qurux iyo wuxuu ka dhigayaa jileec. Marka ka faa'iideysta walaalahayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walbo aad joogtiin, dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty oo ga barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashin hadeenii 10 kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada. waxaana inii sida alaabta yarta oo caaga noogu jirto. alaabtaana waa kareemkan halkee la marsanaya waayo waa kareem qasqasa oo gacmaha iyo lugaha lagu cadeynayo oo gacmaha iyo lugaha la marsanayo. ma ahan qasqaskii fiiqay gacmaha iyo lugaha oo xididada ka soo saaray. waa qasqas natural oo 100% la hubo oo gacmaha iyo lugahana cadeynayo waliba si degdeg ah. gacmaha iyo lugahana nafaqeynayo, gacmaha iyo lugahana jileec iyo qurux ka dhigayo. marka qasqaskaas ayaa maanta waxaan jeclaystay in aan la share gareeyo walaalahayga, kana faa'iideysta kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabaha aan ka sameysanayno iyo sidaan u sameysanayno. waa qasqas dhan walba ka dhameystiran oo gacmaha iyo lugahana jileec iyo qurux qoloftana ka dejinayo, waytina siinayo waliba si degdeg ah. wax xididana kaama soo saaray. gacmihii lugihiina uu ku nafaqeyna wuuna ku cadeynaa. maxaa ka bismillaah qasqaskeeni ayaan qasaneynaa walaalahayga lugaha iyo gacmaha cadeynaya. marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo qasqaskeena ku qasano. sidoo kale marka hore waxaa u baahan tahay kareem grisiliida ayaa u baahan tahay. gacanta waxaan ku hayo waxa waaye waa kareem grisiliida waaye walaalahayga. kareemkii grisiliidka ahaa oo la soo bedelay waaye. noocan ayaa laga soo dhigay. marka noocii hore hadaa ay haysatidna waa okay, noocan hadii ay haysatidna waa okay. waxaa u baahan tahay muhiimadu inaa heshid kareem grisiliida. marka hal qaando grisiliida ayaa waxaan ku shubanaynaa weelkeena yara walaalahayga oo noo diyaarsanaa. kareemka grisiliidkana lugaha iyo gacmaha maasha Allah ayuu ka dhigaa, wuu nafaqeeyaa, wuu cadeeyaa, jileecna wuu ka dhigaa iyo qurux. marka aad ugu fiican yahay walaalahayga. kareemkeena marka weel ku shubanay sidoo kale waxaan ku darsanaynaa oo caaga yarka noogu jiro waa biyihii grisiliidka lagu qasay waaye. muhiimna waa biyahan inaa haysatid. biyahana meelaha shoppingka ayaa ka helaysiin walaalahayga. halka caag kuma wada daraay, half ayaan ku darsanaynaa biyaheena grisiliidka. biyahana gacmaha iyo lugaha jileec ka dhigaan, quruxna way ka dhigaan walaalahayga. waytina way leeyihiin, way cadeeyaan. biyihii grisiliidka ahaa waan ku soo shubay halfkii walaalahayga. marka waan qasayaa, waxaan isku qasayaa biyihii grisiliidka iyo grisiliidkeena noogu jira meesha oo halka qaando ahayd. intaas ayaan si fiican isku dhex gelinayaa. biyaha grisiliidka hadaa kareemka halfkiisa qasanaysid hal xabaa kugu filan, hadaa wax yar qasanaysidna halfka biyaha ayaa kugu filan. biyahan ayaan ku darsanaynaa. kareemka markii aan soo qasay waa biyo yar oo qiyaas ayaan ku daraynaa si uu kareemka uu jileec noogu noqdo walaalahayga. biyo caadi waaye mana kululo, waa biyihii caadiga ahaa. marka intaan ayaan isku qasayaa oo si fiican isku dhex gelinayaa. waa kareemkii isku keen qasnaa iyo grisiliidkii ayaa waxaan ku daray biyo yar oo caadi ah ku daray. marka intaan ayaan isku qasayaa oo si fiican isku dhex gelinayaa. hadii aad heli kartid oo kale biyaha ubaxa waa ku darsan kartaa oo grisiliidka waa ku qasan kartaa, kaba si fiican jirka quruxu ku noqonayaa. hadii aad haysanina waxaa ku qasanaysaa biyaha caadiga oo kareemkii qasqaska ah. markii aan biyihii aan ku soo qasay sidoo kale waxaan ku darsanaynaa kareemkan ayaan ku darsanaynaa. waa Faiza whitening cream, waa kareem lotion oo gacmaha iyo lugaha iyo jirka la marsanayo waaye. any kareem ku yaalo ayaan isticmaali kartaa oo lotion. marka kareemkan ayaan ku darsanaynaa. hadii aad kareemka haysanin oo kale grisiliidka kaligiis ayaa kugu filan, laakiin waad iska deyn kartaa kareemka lotionka oo aan ku darayo. hadii aad haysatidna waa ku darsan kartaa. xataa hadaa laba kareem oo lotion oo kala duwan oo jirka la marsanayo hadii ku yaalaan ku darso, maasha Allah ayay ku noqonayaan gacmaha iyo lugaha. marka intaan ayaan hadana isku qasayaa oo si fiican isku dhex gelinayaa. waa grisiliidkii, waa biyihii grisiliidka, waa biyihii yaraa oo cadaan aan ku darnay, waa kareemka lotionka. intaas ayaan si fiican isku qasayaa oo si fiican isku dhex gelinayaa walaalahayga. kareemka qasqaska inab caadi maahan, gacmaha iyo lugaha kaama dhowaayo, jileecna wuu ka dhigayaa, wuuna cadeynayaa, quruxna way ku noqonayaan. markii aad marsatid adi ayaa isjeclaan doontid insha Allah. ilaahay idinkiis kareemka grisiliidkan gacmaha iyo lugaha ma lagu gaaro. marka waxa waa qasqas aan lacag badan kaaga bixinin. marka ka faa'iideysta walaalahayga. markii aan kareemkeeni soo qasanay sidaas ayuu ugu dambeyntii noogu soo baxay maasha Allah. sidaas ayuu diyaar noogu yahay. marka caagana ku shubanayaa. caaga mid baa iga sii dhamaanayo waa isla asagoo kale oo maalin hore aan qasay.
marka gabagabo xoogaa yahay waa ku kor darsanaya walaalahayga caag kale ma haysto. Marka adi waxaa sameynaysaa caag yaraa soo qaadanaysaa sida caagan oo kale ayaa ku shubanaysaa halkaasuu in muddo kugu jiraya mana halaabayo muddo hal bil 2 bil sida adiga u isticmaashid ayay kugu xiran tahay ma isbedelayo daboolkiisa haddii aad saaratid. fridge-na uma baahno kareemkan meel ayaa iska dhiganaysaa meel banaan oo caadi iska dhiganaysaa halkaas ayuu ku oolayaa mana isbedelayo. markii aad rabtidna hadda halkaas ayaa ka isticmaalaysaa muhiimadu waa inaad weel yar oo isku dabool ah ku shubatid. ugu dambeynta hadda sidaas oo noogu soo baxay sidaas ayuuna kareemkeeni diyaar noogu yahay. si aad u isticmaalaysaa waaye marka hore lugaha iyo gacmaha iska soo nadiifinaysaa marka iska soo nadiifisid sidaas ayaa u marsanaysaa habeenkii oo kale ayaa marsanaysaa markii ugu dambeynta aad seexanaysid ayaa kareemkan lugaha iyo gacmaha marsanaysaa. maalinkii haddii guriga aad joogtid oo kalena waa marsan kartaa adiga ayay kugu xiran tahay. subaxii markii aad soo kacdidna hadda marka aad ka weyseysatid gacmahaaga iyo lugahaaga adiga ayaa ka yaabi doontid jileec iyo qurux iyo cadaanta ay kuu noqdaan insha Allah ilaahay idinkiis. marka sidaas ayaa loo isticmaalayaa mar walba uu ka dhamaadana sidaas u qasanaysaa meel iska dhiganaysaa ma isbedelaay habeen kastana waa marsanaysaa gacmaha iyo lugaha gacmahaaga iyo lugahaaga adiga ayaa ka yaabi doontid insha Allah xalile dhalay ku noqonayaan cadaan iyo jileec iyo qurux ayuu grisliidka gacmaha iyo lugaha ka dhigaa wuuna nafaqeeyaa walaalahayga. marka ka faa'iideysta insha Allah waa qasqas bilaa gacmaha iyo lugaha aan ka dhuubin oo bilaa qarash waa qasqas yar oo fudud oo easy oo gacmihii lugihiina ku cadeynayo gacmihii lugihiina ku nafaqeynayo jileecna kaaga dhigayo mana ka dhuubayo. marka maxaa ka fiican waxaad i ahubtid gacmahaaga iyo lugahaaga ku quruxso waa maasha Allah meel laga helo malahan walaalahayga waadna uga maarmi doontiin insha Allah qasqaska banaanka ka soo gadinaysiin oo xididada soo saarayo oo gacmaha iyo lugaha dhuubayo waxaas oo dhan alaabtan way ka kaafinaysaa gacmihii lugaha ayada jileec kaaga dhigayso ku cadeynayso quruxna kaaga dhigayso. kareemka grisliidkana sidiisa asagaaba waiting ka samaysan walaalahayga aad ayuu gacmaha iyo lugaha ugu fiican yahay jileecna ka dhiga gacmaha iyo lugaha xataa haday ku adag yihiin lugaha oo qolof ah ku leedahay kareemkan isticmaal qoloftaas wuu ka dejinayaa hubaal insha Allah gacmaha iyo lugahana baby ayuu kaaga dhigi doonaa jileec iyo quruxna uu ka dhigayaa. marka ka faa'iideysta walaalahayga soo dhawaada meel walba aad joogtiin waana ku mahadsantiin hadda sida quruxda badan ay ila socotiin mar walba fiidiyogaana walaalahayga sii share gareey asxaabtiina la wadaaga waxaa laga yaabaa qof walaalkaayo markii aad sii share gareysid inuu ka faa'iideysto. marka sii share gareey like taa naga hilmaamin channelka haddii aad ku cusub tahay hadda minankaaga waaye soo dhawow subscribe iska saar haddii aad hore noola joogtana waa ku mahadsantahay sida quruxda badan aad mar walba noola joogtid. waxaa ina kaga tagayaa walaalahayga sidaas iyo nabadgelyo waa inoo kulanti dambe hadda iyo anigoo ina wado fiideo kale oo xiiso leh walaalahayga.